Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. Very good. waxaan doonayaa hadalkayga inaan ku bilaabo aniga oo arkaya dadkan faraha badan leh quruxda badan leh sharafka badan leh halkan iskugu yimid oo ay ku jiraan dadkii dhaqanka inoo hayay miisaanka weeyaan ay ugu soo horeeyaan dhalinyarada waxbaratay iyo dadka aqoon-yahanka ah ee halkan fadhiya professionalska kale ee halkan jooga dadka baayac mushtariga gacanta ku haya iyaguna halkan fadhiya dhalinyarada howlahan ka dambaysa ee dhididka badani ka galay intaba waxaan doonayaa iyo haweenka Somaliland inaan halkan ka salaamo oo aan uga mahadnaqo aniga sharaf weyn ayay ii tahay inaad halkan isugu timaadaan waxaan gudi karo amba aan cabiri kara maanta ma aha xiisaha igu jira laakiin waxay markhaati ka tahay idinkuna inaad ii ogoshihiin aniguna inaan ii ogolahay maanta waxaan jeclaan lahaa maanta halkan mar haddii aan ahay dadka aan ka soo tafiirmay qaar ka mid yihiin ay awdal ee degmadeeda ka yimaadeen waxaan jeclaan lahaa ogaaskii cabdirashiid inuu maanta halkan inala joogo nasiib daro uu iman kari waayey waxaa ku dhacday waxoogaa mashaqaha faamiliga Ottawa Canada marka halkaasuu si degdega waxoogaa accident oo ka dhacday inuu tago marka ogaaska halkan cabdirashiid salaan xoog leh ayaan halkan uga diray gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo imikana ah rasmiyan tartanka xisbiga kulmiye qofka uga qayb galaya doorashooyinka soo socda ee madaxtinimada Somaliland walaalkay Muuse Bixi Cabdina waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo oo aan uga mahadnaqo hadalka uu jeediyey iyo joogida halkan uu joogo xisbiga kulmiye madaxdiisa kale ee halkan fadhida ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ku saddexaad dadka halkan fadhiya wasaaradda maxaan ku rahay ministerada halkan fadhiya oo qaarkood aanu si gooni ah u saaxiibnahay oo walaalkay Cadaani uu ka mid yahay Mareykan ay wada joogi jirnay halkana aniga dadka aad iigu soo dhaweeyay ka mid ah ilaa markii aan soo noqdo ilaa ceerigaabo igu sii galbiyay waxaan jecelahay inaan halkan wasaaradda uga wada hadnaqo madaxweynihii waddanka oo halkan aanina laga joogin inaan halkan salaan isagana uga diro iyo mahadnaq iyo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka walaalkay Cabdiraxmaan Cabdilaahi isagana oo aanu aad iyo aad u sheekaysanay si wanaagsan ay soo dhaweeyay dadka taladeedana wax weyn ku lahaa isagana halkan inaan uga mahadnaqo aniga maalintani waa maalin aanan iloobi karin daalkolka waan joogaa maalmo badan oo xusuusta ayaa i soo maray farax badan leh qaar muruga leh ayaa i soo maray laakiin maanta waxay ka la mid tahay agtaala maalin aad iyo aad iigu weyn oo bishii Juun 2013 iyaduna ku jirta oo markii waddanka aan ku soo noqday waddanka ku wareegay magaalada Boorama khayriyadeeda 70,000 iyo in ka badan ay isku soo bixin oo waligay iloobi karin maanta ayay kala marka waa maalin aad iyo aad ugu jirta ruuxayga iyo dhiigayga inta aan noolahay in sharafka caynkana aniga oo weli kasban in la siiyo aad iyo aad baan tana doonayaa inaan u xariiqo waxa kale oo aan doonayaa maanta halkan inaan iyadana si weyn u cadeeyo inaan goostay tala ah in aan wax ku soo biiriyo taagtaydu ha iska yaraatay waxaan ku soo biiriyo ummadan Somaliland horo socodkeega iyo dhismaheega waqtiga soo socda aniga oo galaya oo isticmaalaya organization-ka iyo dhismaha xisbiga kulmiye in badan ayaan dad badan la sheekaystay qurbaha iyo dibadda labadaba
oon tala weydiiyey ilaa in ku dhow 2 sannadood ugu yaraan axsaabta kale labada xisbiga kale waddanka dadka madaxda u ah oo dad sharaf leh oo aan aad iyo aad u qadariyo si badan oo gundheer ayaanu waqtiyo badan isku qaadanay inaanu isla falaqayno mustaqbalku wuxuu eegyahay sidaan u wada shaqayn karno iyo hawlahaasaan u wada qabsan karno iyagana halkan maanta labada xisbiga kale iyo madaxdooda inaan uga mahadnaqo ayaan doonaya laakiin waxaan markaa caawa iyo maanta doonayaa inaan caddeeyo inaan mabsuud ka ahay iyadoo oo si badan la iila taliyo oon dad badan iswaraystanay in maanta aan soo gaadhay tala ah anigoo aad uga mabsuuda kalsooni weynna ku qaba in aan ka qayb galo horumarka iyo horo socodka waddanka Somaliland aniga oo xubin ka ah xisbiga kulmiye hadalkayga intiisa hadday intaanan u gelin وأرمان public policy كوسا في الإنترنت وقلين واحد دون يهال كان إن الدواء وقدره أنو كهرسو مالي الآن ضبط مسجوني اسمه وحدنا ذات كان سنة وحوي دليرة الجامعة ده كجرة اسكول هذا كجرة وإلا عرقاب إلا مجانا ده بور ما ينتهوا ده حيصد داتسن ومسجوني اسمه وحدنا هاي أبلا ما بدل إن قد أحيان إن الفرين جوني هال كان ما أنت وقدره هي أنت كلينا دقيقة نسوي مدي سومالي الآن هي الدنيا ده فرين تاسنا وحوي هنا سو قليد حزب الكلية أنا جو آدي وكلسون أو كفر أحسن وحوي فرينت عن دريا دنيرة دي أنو دريا إذن كان عن الدلة ولاقيا سو قليد حزب الكلية هي اللي شقينت حزب هي مدحدة اللي شقينت معناها يقول معها أقول عليه معناها يقول معها أنا جو مالس كدقية أو كتقية waxaan isku aqaano dadku ay ugu yaqaanaan sida inta tamartaydu tahay oo ah mabaadiida anigu aan ku dhaqmo inaanan ka tageen oo ay ugu horeyso cadaalad in lagu wada dhaqmo oo ay ku xigto karti in hawsha lagu qabto oo ay ku saddexayso anigu maskaxdayda furan independent thinking ayaa ingiriiska la yiraahdo maskaxdayda furan aan marnaba maxaan ku dhahay ka tagay taasuna iyo geesinimadeeda ku xidhan in maskaxda ay jeer furan tahay oo sidaad u fikiraysa aad u hadasho oo Muuse hadii bari madaxweyne noqdo anagoo rajeynayno madaxweyne noqdo runtii aan ku hadli jiray oo isagana hortaala ana waxaan doonayaa inaan halka kaga waayo wada lahaashaha wadanka wada lahaashaha xisbiga kulmiye wada lahaashaha dawladda xisbiga kulmiye oo dhisi doono markuu guuleysto hadduu guuleysto maaha markuu guuleysto xisbiga kulmiye waxaa soo wada lahaashaha wadanka wada lahaashaha xisbiga wada lahaashaha dawladdu waxa gunteedu waxa weeye karti iyo cadaalad haddaan jirin waxa la wax qabsoomi karaya ma jiro marka taasina waxaan doonayaa inaan aad iyo aad u xaqiiqo aan u soo dhaqaaqo gunta hadalkayga waxaan doonayaa inaan dhowr kalmadood ka idhaaho Somaliland xisbiga kulmiye iyo waqtiga inagu soo socda ila waqti soo socda ayaa loo diyaar garoobaya Soomaa intaasaan doonayaa inaan waxoogaa ka taabto waxa igu horeysa aniga hadaad deesa u hadlayso inaad adigoo oo ay fara badan tahay inaad yara taabato kaydka wadanka u yaala waxa dawladda maanta taagan ee Axmed madaxda uu ka yahay Maxamuud iyo Cabdiraxmaan ay madaxda ka yihiin iyo dadkii la shaqeynayay waxay soo qabteen ee kayda ee capital ee banka yaala in la xuso waa important in halka laga dhaqaaqayo waa halka weyn waxa kamida maxaan ku rahay wadanku way jiraan meelo daldalaac iyo xagasho ay ka taagantahay wali xasiloonay laakiin Somaliland inteeda ballaadan waxay haysataa degnaansho siyaasadeed iyo nabadgelyo waa guusha halkay ka bilaabanto la'aanta wax socon karaya ma jirto
taasi waa arrin baanka inoo talabaad waxa weeye dhaqdhaqaaq xagga maxaan ku dhaqaale dhiska ah oo iyaduna imika muddo aba socotay oo dee waddadaa isku xidha kala bay iyo dira ay markhaati ka tahay waddada burca laga dhaqaajiyey ee ilaa ceerigaaba ku socota oo dee adduunyo dhanade ya ay markhaati ka tahay wadooyinka magaalada Boorama gudaheega haddii 5 sanadood amba 6 sanadood amba 10 sanadood horteed aad eegto dee way ka duwan tahay maanta magaalada Boorama inay wadooyin la mari karo ay leedahay Gabriel waa sidaas Hargeysa waa sidaas meelo badan oo caynkaas waxaa ka mid ah baanka arrimaha yaala airportkii Hargeysa oo ku soo degi kari waayay anigu 2013 waa laga shaqaynayay marka barbareyn lagu soo dego maantana diyaaradihii waaweynaa ee adduunyadu ay Hargeysa soo fadhiisanayaan waxa ka mid tahay waxa la qabtay ee baanka inoo yaala furdada magaalada Berbera oo aad furdada wadanka ugu weyn oo imika dib loo habeyn doono la ballaadhin doono gunteeda la sii adkeyn doono maraakiibta waaweyn ay soo degi doonaan oo wadooyin waaweyn ay ka soo baxaan oo wadanka gala ilaa Ethiopia waxa weeye ufada soo socota iyo darajada soo socota laakiin dad baa xadhigeega dhigay oo dhagaxeega dhigay oo keenay marka waxaan filayaa arrimahaas in ay yihiin waxyaabaha aynu u baahanahay la xuso waxa kaloo indhahayga ku arkay hadaan qof academic arkay shaqooyin badan oo private small business imika meel walba socdo dadkiisu hotelkan oo wadanka iyo awdal iyo Boorama ay u baahnaydna wuxuu markhaati ka yahay shaqada private-ka ee dadku ay dadaalayaan wax qurux badan oo wanaagsan in la sameeyo marka walaalkay hotelkan ay raayigiigu ku maxaan ku raay dhashay shaqadan way qabtaan anigu xalay seexday oo ka soo toosay saaka isagana waxaan ku leeyahay congratulations halka hawsha ka wada waxbarashadii sidaas leeg dad badan baa maanta waad ogtihiin kuma yaal boqolaal toban yaala ayaa maanta ku jira iskuulada amba dugsiga ku jiraan amba elementary school ilaa jaamacada ku jira waa wax wanaagsan oo inoo soo kordhay waxa jirta talaabooyin bilow ah oo laga qaaday arrimihii siyaasadda dibadda waxaan ahay dadka aad ugu kulul siyaasadda dibadda inaan halkii la doonayay gaarin waan u soo noqon doonaa laakiin dee talaabooyin baa jira muuqda oo la joogsan karo oo laga dhaqaaqi karo kuwaana in la xuso waa lagama maarmaan intaas iyadoonan dhammayn karin waxay mathal u yihiin waxa la qabsaday maxayna hor yaalla ee xisbigani oo doorashada la tegaya ee dawladda ummadii loo bandhigaya laga dhaadhicinayo deetana guul lagu doonayo way fara badan tahay laakiin anigu dhowr qodob baan doonaya inaan soo hordhigo oo idhaaho ay priority u tahay dadka reer Somaliland xisbigana ay ka mid tahay aniguna aan ku soo beerin hadday jirtaan aan ku sii adkayn in laga dhigo visionka iyo public policy arrimaha qodobada lagu dagaalgalayo doorashadaas way bilaabantay badii campaign-kii uu bilaabay ayaan yeela tahay walaalkay Muuse si wanaagsan buu xaray isku duubka iyo wadajirka Somaliland anu waxaan qabaa inay tahay number 1 hawshaasi ma dhamma wadajirka Somaliland ma dhamma horena waana waxa dildilaacyo badan ayaa yaala laakiin waa wax degdeg wax looga qaban karo oo la daweyn karo marka anu waxaan qabaa in aad iyo aad xididada loo sii dheereeyo jirida la sii adkeeyo oo aad loo waraabiyo wadajirka iyo isku haynta ummadda Somaliland gees ilaa gees in la isku hayo taasina waxay ku imanaysaa dhowr qodob oo degdeg wax looga qabto oo hawshoodii si buuxda loo sameeyo muusana arrinta uu taab waxa weeye citizenship waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo dadku inay wadanka wada leeyihiin citizenship in laga horgeeyo reehibel laga horgeeyo reehibel waxa qore baabin kara waxa weeye citizenship qofku inuu yahay citizen wadanka u dhashay xuquuqdana loo simeeyay inta hadii laga adkaado qabiilku hoos ayuu dhacay qabiilka waxa dhaliya marka citizenship aanay jirin amba aw haraadan yahay meel kale oo la hadsada aanay jirin ay halka la galay taasi waa koob talabaad anu waxaan qabaa wadanka isku hayntiisa iyo in aad iyo aad loo adkeeyo wada jirka inay u baahan tahay cadaaladii in dib loo soo nooleeyo cadaalad in dib loo soo nooleeyo
cadaaladana lagu xidho qawaaniinta waddanka oo la adkeeyo oo loo hogaansamo oo la ismaqlo oo la kala dambeeyo qofka bilayska markuu ku yiraahdo joogso halka ma mari kartid ila joogso aanad oran warday naga daadi anoo halkaas aan doonan aynan marna aad joogsato wada garmis anu sheekooyin badan baan daaw khaysanay idin sheegi lahaa Japan wixii iga qabsaday habeen baabuur aanay jirin wada anagoo socono oo lugeynana waa magaalooyinka waaweyn mid kamida oo baabuuradii aanad arkay nal casina ugu soo baxana koo lugeyno qoladii la socotay Japanese-ka oo anigu sheekaysanna nalkina wuu casyahay aan iska talaaban doonayna wadadii ka talaabo ninkii ila socday dadkii amartida anu aan halkii way joogsadeen nalkay sugayaan intuu ka noqonayo cagaar green uu ka noqon ana waan iska socdaa waan sheekayn soo adamaadka baabuur iyo wax noo dhawi ma jiro waa 12 kaabo dib baan u eeg asay qasnaa ay siday markii dambe weydiyo ku ri maxaa waasina delegations professor Samad ma aha qaynuunku marka bilayska amba dadka qaynuunka ay ku joogaan inaad ogolaato dadka marka bisasheed citizen tahay waxa weeye adiga ilaahay mooga cid kale aanay ku arkay inaad qaynuunka u hoggaansanto ku dhaqmayso adoon lagu arkay taas waa ka misaal marka waxaan idinta saddexaad karti waan soo noqon doonaa karti Somaliland karti waa inay muftaax noqoto hadii kala ma kala baxayno qof walba uu soo doobin doobintii la kala saari karo ma yatiin dhabta ahayd yatiin soo adiga karti waa inay noqoto kartidiina waxay la socotaa institution building xisbigani waxaan anu maxaa ku raay gabil shalay aan idin xisbigu waa inuu noqdaa xisbi taariikhi oo sidii relay race marka la orday caruurta la ordayo qoriga la isku diibayo relay race generation by generation ka kale oo diibo haduu xisbi noqdo meel jaran yar laga dhigto kursiga lagu fadhiisto kolka kursiga lagu fadhiisto deetana jaranjaradii la taaraatiyo xisbi ma aha soo degays xisbigu waa inuu noqdaa organization daba oo ka quwad weyn qofka gudoomiyaha waqtiga قدومي كحينين كقوة وين مدحوينها كقوة وين وضياش كجرا كقوة وين وأيو generation كي صار دجنا ولي حزب جويليه قوة صوص عنا ويليه أنت وقت جاي جوكتا كل دول حزب جماله مركا institution جوكتا أم بوزارة قانون هالنقط أم بوزارة عافمات كهالنقط institution جوكتا وحاسو ده وحاسكو صوت دوبي الصومالي لأن أضيع إنه أتخين إنه وده جيل كذا أنا وحنا فوقي أسوأ وحنا دي عاشق أسبوعين من دحمرة ولا ندير سوء عاشقنا ولا ندير سوء صدق جميل إن ندير سوء جعلانون ششة ما لاحظوا وين الجعين كهي عاشق كينا يعني جيمات ذلك كان كذا أرنت الله بعد يهورت الله كل مية إزبي هورت الله كان من نقطة بنتاني وصل يلتها هاي أجندها اللي قد قال كي وحوي موسى نوطا وهذا قال بسم أنا كمبدأ أيوة أدرس كل صوت وذني موسى ما نحلم ما نوحن ريهرسل كمان ناس نوحي كواحد يوحن كواحد ما نقصه ومسكح كلامتي ما كان هالك الرجوي بعكوت دقال الدسنا هالك هو الرئيس وحوي شق أبوه وتأدوك تندوان ميتي دليري سمال لأن نقصه قريب ميتكم توضع كمان نعبا لكن واحد يجوا قام بيواي شو تكرمش وضعنا هدي دليري وصلا ولا يعش يوح لوجو قاعدين جرين ده خلاص مركا شق أبور ولا قام ما شق أبور المفتاح وحا هو production سيدر وحلوقصه صار يوضع production أفر تمالودي وين البرودكشن كلا جسوا صار ما هب بيزنس كا وحنا أنت لجسوا China لجسوا يبيو ده بتندد كلا جي يبيو تحسوا تريد أوكي لكن وحاسد قالوا لهم مرس production وحوي بارهي production وين العقية وكصبح باقي وين نقطة من الورشة أي كوت هالله يا اللي أنت كب حدا أنت لقول ميرو قصة على لقول الجيو ده ترى أدوية الله درو هوست أي كذا قرنت هاي made in Paki Republic of Somaliland production agriculture بارهي حوله ده محاكو راهي جيلي يلودي يعريق حوله animal husbandry إن مال ميسل السوق قرسيو أو كتير دارات اللي جليه أو علم الساينس كل السنة السوق وحنا بدين شيء for example قالوا السويد شانوا دوان شيء كيسا أنا السويد واحد يقول أنا ما ساينتيست بري يهري الصومالي يجي بنتي بربو قالوا يجي من جري واحد كشقين ينو يدوني عانها جيلة
intay warshadii u sameeyaan caanaha geela dabeetana yogurt laga dhigo caanaha geelu waa caanaha ugu subag badan male yogurt in laga dhigo intana Yurub la geeyo iyagoo arrimaha khidadeedii dhigtay oo wixii oo dhan dhameeyay ay burburkiyo wixii dhacay sidii bay deetana alaabtoodii ku laabteen oo iska noqdeen marka xoolaha waxa ku jira arrimo badan oo cilmiga science uu soo saari karo oo ilaa imika aad uga shaqeyn halkana production baa ku jira kalluunki 900 iyo dhowr iyo 80 baan malaynayaa dhowr iyo 50 way xeebta Soomaaliland te wax badan ay halka laga sameyn karaa kalluunka iyo small industries iyo mining arrimaha caynkaas production halka aan kaga haro iyo dadkii shaqaale labor force waxa ka shaqeeya oo farsamo leh oo generation ka dambeeya oo ka farsamo wanaagsan yahay waxa soo raacan dhaqaale dhiska infrastructure waxa weeye waa xubnihii dhaqaaluhu ku soconay wixii uu ku soconay wadooyinkaas ka mid ah laakiin waxa ugu horeeya infrastructure wadan aan taalahayn oo dhaqaaqaana ma jiro energy haddii aanay energy jirin ma dhaqaaqaysid waa inay energy kuna maaha maxaan ku rahay Hargeysa iyo Boorama iyo Burco iyo Laascaanood iyo Ceergaabe magaalooyinka caynkaas maayama waa in magaalooyinka yaryar ee taabiyadaha ee 200 qof ay ku nool yihiin waa inay energy leedahay marka sidaynu energy u helayno waa hawl weyn oo inoo tala la'aanteedna ma soconayso production waxa la yiraahdaa Ingiriisiga rural electrification baadiyihii oo nal yeeshay ma magaaladu baadiyaha ruush waxa lagu dhisay waata Mareykan waxa lagu dhisay waata Japan waxa lagu dhisay waata wadamadan imika dhismaya Ethiopia ka mid tahay hadaad aragto waxa lagu dhisay waa arrimaha caynkaas energy xaafadihii iyo daabiyadihii iyo wadankii la geliyay wadooyinkii furdadihii halka waxaan doonaynaa furdada berbera in la ballaariyo sida laga dhigo way wanaagsan tahay oo wadan walba wuxuu leeyahay meel weyn oo furdada ugu weyn Rotterdam oo Yurub oo dhan ugu weyn oo Holland waa in berberisa ay noqoto waa laga maarmaan laakiin waxaan leeyahay waxa bayaan berbera lagu shub soo aad garmaysid loo hayo waa in la dhisaa soo aad garmaysid laas qoray waa in la dhisaa furdadaha yaryarna iyagana waa in xoolo la geliyaa haddii kale waxay noqonaynaa magaalo port qura halkaa la iswada daba joogsado waa in la kala furfuraayo aniga ila tahay airport waa sidaas magaalada Ceergaabo waa inay airport yar yeelato waa halka ugu fog marka Hargeysa loo eego airport yar waa magaalo qiimo weyn la Ceergaabo airport yar oo maxaan ku rahay diyaaradu tagi karto wadada iyo diyaarada marka la isku xigana deebi honeymoon ka loo tagay Ceergaabo waa meel lagu soo raaxaysan marka arrimaha caynkaas technology iyo internetka in meel walba ay gaadho waa arrimaha infrastructure wadanka ay ka mid tahay ugu dambaysa arrimaha dhaqaalaha waxa weeye dabeecadda environmentka sida loo ilaaliyo waxaynu deganahay adduunyada meelaha ugu khatarsan baynu maanta deganahay haddaad geographiga iyo weather and climate haddaad garanaysaan waa saaxil baa la yidhaha the great dry lands of the world adduunyada dhulka engiga waaweyn ee ilaa Asia Japan Gobi Desert ilaa halkaas gashay West Africa halkaas aynu deganahay temperature-kan kolka ayaana uu sii xumaynaya kolka imika in laga sii fikiro environmental protection imika in laga fikiro haddii kale kuleel cusub baa soo yimaanaya cudurro cusub ayna aqoon baa imanaya dabeecaddu hadday isbedeshana waxa aan soo sheegnoo dhami waxay noqonayaan maxaan ku dhahay wax baa environmental protection halkaan kaga hadlo tasaddexaad human development horumarka bini'aadamka human development laba muftaax ah waxa kale oo dhami way ku xidhan yihiin laba muftaax ugu horeysa waxa weeye public health caafimaad ma jirto adduunyada meel dadkoodu ay bukaan oo haddana qurux badan oo maxaan ku dhahay adduunyada ay saaciso ma jirto soo adeegay caafimaadkuna waxa ugu horeeya laba amood biyo nadiif ah oo la cabo maanta dadka Soomaaliland ku nool hadday ugu badato 20% 25% ayaa biyo nadiif ah inta kale biyo wasakhaysan baa cabba biyo wasakhaysan dad cabisana cudur baad cabisa doon ugeey soo adeegay clean water cudurrada dadkeena hayana 70% haddii biyo nadiif ah cabaan tropical diseases halkaas ay kaaga harayaan cudurrada kolka biyo la cabo nadiif ah in meel walba la geeyo ma aha magaalooyinka waaweyn iyo hogalada waaweyn oo biyo nadiif ah meel walba iyo nutrition waliba nutritionka ay ugu horeyso dumarka iyo carruurtu waxay cunayaan inay cunto wanaagsan helaan dumarka iyo carruurta waa taas
preventive medicine waxa weeye inaan la sugin qofku intuu bukoonayo markuu bukooday dhakhtar hal si loo daweeyo no laga hortago cudurka intaanu iman in laga hortago preventive medicine ayaa af ingiriisiga lagu yiraahdo halkan waxay nala fadhiyaan inaan soo raacnay Dr. Cabdiraxmaan Madar oo dhakhtar weyn ku ah Mareykan magaalada deganahay ayuu u degan yahay laga yaqaano جيمك جامعة أبوك هلا يا دقيست عبد الرحمن ويستاك الله وقت يستاك أنا وين تاسك يا جاري سجى معلم وين أرلمها كأو سجى ورئيسن صوتان لكن وا important إيوه public personal and public hygiene نظافة القفة هي نظافة الجريدة هي نظافة السوق Somaliland waxaad arkaysaa meelo badan bay nadaafaddu aad u liidataa in nadaafadda public sanitation laga shaqeeyo waa important halkaan kaga hadlo waxa soo raaca horumarka bini aadamka waxa weeye education waa education waxbarashada way education waxbarashada waxbarashaduna waa laba waxbarashada waxa la yiraahdaa ingiriisiga horizontal waxa weeye dadka intii la gaari karo boqolkiiba boqol inay dadku hadli ka ay wax qori karaan waxna akhri karaan horizontal oo literacy inuu qofku wax qori karo waxna akhri karo ba Soomaali ku qor amba Carabi ku qor Ingiriisi ku qor it doesn't matter literacy horizontal halka talaabooyin badan baynu qaadnay dad badan ayaa imika wax qori kara waxna akhri kara marka loo qiyaaso halkaynu ahaan jirnay laakiin halka aynu ka jabnay markay noqoto wax qorida iyo isku gelida waa dumarkii weeyii hablihii yaryar waliba hablaha yaryar iyo dumarka guriyaha faqrigu ku badan yahay ka yimid Somaliland oo dhan markaad eegto dadka wax qori kara wax akhri kara waxa weeye boqolkiiba ilaa waxay noqonaysaa 40 way ku dhowdahay boqolkiiba 40 koob iyo 40 laakiin markaad eegto haweenka hablaha waliba xaafadahoodu ay aad iyo saboolka u yihiin boqolkiiba 10 boqolkiiba 12 baa wax akhri kara waxna qori kara halka hawl weyn ayaa inoo tala waxbarashada waa horizontal laakiin ta kale la soo gaaray oo wasiirka waxbarashada uu marxaati ka yahay waxa weeye vertical waxbarashadii quality ya waan iskuuladii baa lagu jiraa waa okay laakiin tan maxay bartaan quality-gu maxay tahay adduunyada ma la tartami karaan waa quality taasi aad bay imika inooga dambaysaa waxaan ku waan haynaa data arinta waan haynaa aad iyo aad bay u dambaysaa quality-ga sida kor loo soo qaadayo waa lagama maarmaan curriculum-ka tight in dib loo soo habeeyo waa important jaamacaduhuna inaanay noqon meel maqaaxiyo qofku ilaaho wallahi jaamacad baan doonayaa inaan furto uu iska furto oo wuxuu doonaa wiibiyo ya waxaas jaamacad ma noqonayso marka in curriculum-kii dib loo soo habeeyo ayaa loo baahan yahay jaamacadahan specialization inay kala yeeshaan waan ka wada hadlay jaamacadaha waan wada arkay waxay soo wada mid ay wada iibiyaan soo dhammaada ma soconaysa dhulka Mareykan waxa ku yaala ugu yaraan waxa ku yaala ugu yaraato 4,000 oo jaamacadood ba ku yaala base-ka waa isku wada mid laakiin mid walba specialization bay leedahay oo lagu yaqaanade oo la yiraahdo doonaysa inaad taa wax barato halkaas inaad arrimahaas aynu u baahanahay in degdeg loo galo waxaan ku talinayaa marka xisbigana aan ku guwaabin doonaa inay noqoto project-keena ay noqoto in la sameeyo board of education board cusub oo dadka jaamacadaha abuurtay waxaasi aanay ku jirin waa inay noqoto independent board oo ah dad yaqaana jaamacadaha sida loo dhiso loo maamulo curriculum-ka loo sameeyo dad caynkaas ya oo u dhaxeeya jaamacad ku xidhnayn board caynkaas oo karti in la sameeyo oo dib markaa u soo dejisa sida loo habeynayo education-ka iyo jaamacadihii waxay la tahay inay noqoto xisbiga howlaha uu ku tagaan kari laakiin quality wadanka Mareykan haddaad joogto iyo dhulka Yurub haddaad guri iibsanayso amba waxawadaal dhisa saamkan waa inaad soo eegto dhulka marka dambe kharashka ku baxaya maaha marka dambe sida uu loo sameeyay maaha waxaasoo dhan way wanaagsan yihiin marka dambe Mareykanka waxa la yiraahdaa haddaad dhul iibsanayso wax dhisayso location ya halkuu ku yaala guriga hudaalku halkuu ku yaala dukaanku halkuu ku yaala أنا واحد الله سبحانه وتعالى واحد سوق قادر مركي نقطة أرمها education واحد السوق قال وقت يقولون لها quality كذا ممكن نتاكد نحن قلت كذا قبل يا أرنتي سياسة الدبل
oo afraad oo aniga ay la tahay priority number 4 inay u tahay wadankan xisbiga kulmiyana aan rajeynayo inay ka mid noqoto howlaha maxaan ku leeyahay campaign lagu galayo dawladda la dhisayana ay u noqoto maxaan ku leeyahay marxaati siyaasadda dibadda laba amuurood key oo ah oo mas'uuliyaddeedu saaran mid waxa weeye dood cusub oo aan ahayn 25 sanadood doodahaynu wadnay dood ka cusub in la soo hordhigo Soomaaliya dadka ka wakiilka iyadoo adduunyadu marxaati ka tahay dooda cusubna waa inay noqotaa dood cilmiyaysan waa inay noqotaa ya oo iska daa qofka kuugu nacab ee aan waxba kula doonayn qancin karta adeegta qofka waa easy qofka wax kula jecel waa sanqan oo diiradda kan oo khalaas uu ku saxiix laakiin qofka aad doonayso maxaa ku raayay inaad jebiso oo ka adkaato waa qofka waxba ku ogolay kolka waa inaan keenaa dood cusub Somaliland sida ay u soo hor fadhiisanayso Soomaaliya iyadoo adduunyada marxaati ka tahay waa koob talabaadayna horta la siyaasadda dibadda waxa weeye in adduunyada wadamada waaweyn ee adduunyada dhaqaajiya muftaax adduunyada iyo organizationska amba gobolkan maxaan ku raayay East Africa iyo degmada iyo internationalka ya international organizations iyagana sida loo qancinayo ilaa maanta anu waan la sheekaystay in badan baan la sheekaystay UN kan la sheekaystay AU kan la sheekaystay European Union ka sheekaystay waxa kooranaya Somaliland oh nice laakiin de shaqada marka la inoo dhigmeel marka they don't take us seriously I'm telling you marka waa inaan keenaa ya dood cilmiyaysan oo muruq leh oo soo joojisa dadka oo hey this is serious dad waa inaan keenaa maxaan ku keeni karnaa bay markaa noqonaysaa gabagabadii madaxweynihii Kennedy intiina daa wad garanaysaa intiina iskuul gashay wada akhrisatay 1960 ayuu madaxweyne ka noqday xisbiga dimuqraadiga ka soo baxay madaxweyne ummadii Mareykanka iyo suurtaag baarlamankii labadii guri iyo telefishinkii adduunyada ballan ayuu qaaday wuxuu yiri ballan marka waxa la tartamayaa Soviet Union waxa lagu tartamayaa space hawada ya عدة محاكم هاي حكومتهم تدي أنك exploration كده ترت وحوي وأنا روش كهرية ما كانت روش كويس دري بس يروح وقف نص على يوري جاجرين ودري ولا جهرية أمريكا وحكي وحن عاو قبلا قاضية أنا جيت دولتي إنه صلدقي السماينا يا إن طبعا سنضاد وحن كبرنين 10 years ومدة أمريكا كيت دولتي ay qof bini aadama oo Mareykana intay sayruuq saaraan dayaxa ay ku dajiyaan oo dayaxa dul oo ku dego ayaan bal ku qaaday waligeed yaa la taariikhda bini aadamka lagu ma aragtay inta sayruuq qof halka la geeyay never happened before ballankaas aan qaadanay laakiin ballankaas hadii laga soo baxay waa hawl adoon hore waligeed loo sameeyay waxay u baahan tahay shaqo gooni ah waxa la waxa scientist ee Mareykana ee la yaqaan top class ka miida in soo qaado حول بدن billions ما محن كره billions إلا كده administration ونأكسن لو سمي أوربان سمي مركز الله يده هو ناسا وما أنت هو national agency for space يعني سمي وحدهم بعض السكان ميدي مريكان كي يقود دي أقولتي دي scientist دي محن كره الدولة دي وحدهم بعض الجلية ماشي طبعا سنة ضمن بالله كوي سجال سنة 1969 نيل أرمسترونغ وكي كده جديه أنا لما جوجو بي بي سي أنا يروح شقينا وين ما يسوون سو هتجمش واحد مرة مرة يقول مركبي سو هتجمش لو كان انتو يستول تاجد ده يحيري small step for man وطلابة يرقف بني آدم يقاضي كرو but a giant step for humankind لكن وطلابة وين وبني آدم وقاضي علمي دي سيها كاو كتير أنا وحنا دلله كبد سومالي لان أرنتها سياسة الدبلة دين لا أنا هاي وحمدون إن هاي لا يلاقون صلوا وأين إنه دار عين كاسة قلنا أون نراهنا قوة دين نوردن بانسولي جيننا وكقبصنا أم بشر هالنقطة أم بطمن هالنقطة أم باكبرنا لكن هوش أسنجين قوة دين دون إنه يسكولون كذا بينا وحيان حزب قالوا وحنفوجوا بعدين إنه محاكم هاي بلن كاقات ويحزبيه ذا كلا وكجد ونادو بلن كاقات تنبت كنا لا كانوا سيد اللي قلت لي محل قلت لي يا بين قرص استراتيجي بيوبانت national strategy maanta ma jiro Somaliland aqoonsi dibadda laga raadiyo waan baaraan dad wanaagsan way ka shaqeynayaan laakiin national strategy ma jiro safiirka marxaati ka oo committee-ga maxaan ku raayay ay ku jira safiirka halka waa soo degarmay
أنا صور قبلي national strategy جبنا وحولي حي شن قدر كو شكله أديبين قصة أديبين سمحي تاي وأنا علمي سنتهاي بحذب بدن لا صور تقول أو تاريخ لكل جبت أو قف عدو جاي كلا قون تام بكا قون بدني أنا جبين كريم تو صوب أنا كريم تاسي ما صار تاسي ما صار تاسي ما صار صور واتاس وقت ما هاي تاي قصة what's the cause what's the case so the court أدي قلت لك يدي أو case صار لي وكو طلبات دي وحوي إن dadka qaadaya sheekadaasi adduunyada gaarsiinaya hadday noqoto maxaan ku lahay dad iska yar wada socdo unta ya iska yar wada socdo unta oo sawirka soo baxay ma soconayso marka dad waxaan qaadi kara miisaankan qaadi kara waa in la helaa number 3 halka la geynayo halkee la geeyo la dhulku isku wada mid maahay halkee la geynayo waa in priority leedahay halka iyo imka maanta waxaan ogahay meelo badan bay Soomaaliya waxa lagu leeyahay halkan Soomaaliya safiir bawjo halkan safiir bawjo doorta safiir ma lihin safiirku waa marka lagu aqoonsado adduunka qosaa safiir leeyahay laakiin mission bay leedahay missionadaasna barankoodu waa daciif wax ka toocankaasi ma jiro waxa inta la ururiyo strategic maybe 10 meelood oo quwadda adduunyadu tahay dadka sida loo daloolinayo laga wada and then finally waxa weeye xoolihii lagu geeyay budget waxaan u baahantay waana Mareykanka sheegay billions xoolo badan waa inay dawladda iyo private sector iyo ummadii Soomaaliland waa isku timaadaa oo waxaan ku halka xoolo la geliyo miisaaniyad loo yeeyo dabeetana waqti aynu qabsano timeline la yiraahdo 6 bilood halka sanad halka 2 sanadood halka timeline lagu xisaabtamo anigu taas halkaasaan ku soo waxaan ku soo xiriyaa hadalkaygii Somaliland wax badan ayaa u qabsoomay khayraad badan baa ku jira dadkayga idinku maanta aad ka mid tihiin ay ugu horeeyaan and I mean this igamaha aniga campaign u sanqayga I really mean this one dersin one arkay wax badan baa u qabsoomay sida walaalkii Muuse uu sheegay iyadoon cid waxba tarin xoolo badan iyo wax badan baa wadankan yaala talent fara badan wadanka way taal dib aan isku caashaqno dib aynu soo samaysan aad baad u mahadsantihiin waliba ree awdal si gooni ayaan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin ya madaxdana aad baan u salaamayaa markuu mahadnaqayaa Somaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guuleysto wasalaam